subaxnimadii 5 July 2017 wuxuu isticmaalay laptopkiisa asagoo jooga guri uu ku leeyahay xaafad aad loo ilaaliyo oo ku taala Bangkok wuxuuna waqtigaas ku jiray shaqadiisa online-ka ee Alpha O2 ee uu ka sameeyay lacagaha malaayiinka dollar laakiin si lama filaan ah ayuu u maqlay qaylo ama shanqar ka yeedhay albaabkiisa gabar wadata gaariga Toyota ayaa waxay ku dhufatay ganjeelka iridda hore ee gurigiisa shaqadii uu waqtigaas u fadhiyay ayuu ka soo kacay wuxuuna soo aaday dhinaca albaabka si uu ogaado wax meesha ka dhacay meeshaas ayaaba lagu sugayay oo wuxuu ku dhacay dabankii loo dhigay gabadha gaariga wadatay waa askari FBI DAA-da FBI-da fursadan waxay sugayeen muddo aad u dheer inay gacanta ku dhigaan The King of Dark Web sirdoonka 7 dawladood ayaa iska kaashaday soo afjarada iyo qabashada 26 jir aas-aasay mid ka mid ah website-yada ugu halista badan internetka bilowgii 2017 Dark Web aad looma isticmaali jirin oo dadka badankood ma aysan aqoon magaciiga waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada haddaba inta aanan muuqaalkeena u guda gelin waxaan sharaxaad kooban ka bixinaynaa Dark Web waa qayb ka mid ah internetka halkaas oo lagu sameeyo adeegyo kala duwan oo aanan lagu isticmaali karin internetka casriga ah ama surface web waa meesha ugu badan oo ay ku kulmaan ganacsigoodana ku kala wareejistaan dambiilayaasha ama drug dealerska Dark Web wuxuu leeyahay webyo kala duwan oo si online wax looga gato sida hubka sharci darrada xubnaha jirka bini'aadamka daroogada iyo macluumaadyada la soo xaday oo ay ka mid yihiin credit card-yada sidoo kale meeshan waxaa si joogto ah u soo booqdo hackerska lacagta kaliya ee Dark Web ka shaqeyso ama wax lagu kala gato waa cryptocurrency sida Bitcoin 2011kii Skillroad wuxuu ahaa mid ka mid ah webyada ugu waaweyn ee Dark Web waxaana loo isticmaali jiray in lagu kala gato daroogada iyo hubka October 2013kii FBI-da waxay soo qabteen aas-aasihii webkan waxaana lagu xukumay xabsi daa'in si loo soo afjaro Skillroad laakiin meeshaas kuma aysan istaagin kala iibsiga daroogada iyo isticmaalka Dark Web July 2014 nin isku magacaabay Alpha O2 ayaa wuxuu Dark Web ka dhex furay web uu u bixiyay Alpha Bay 5 bilood oo uu hawada ku jiray webkan waxaa laga xiliyay credit card la soo xaday iyo hub sharci darro ah waxaana dib loogu soo ziyaadiyay daroogada iyo lacagaha la dhaqo ama money laundering waxyaabaha mamnuuca ka ah abkan oo aan laga ogoleen Alpha Bay waxaa ka mid ah inaanan lagu dhex iibin karin xubnaha jirka ciyaalka xadista macluumaadyada bangiyada ku yaalo wadanka Ruushka haddaba Alpha O2 ninka isku magacaabay oo ah aas-aasaha webkan wuxuu jahwareerinayaa FBI-da si ay ugu maleeyaan inuu yahay nin Ruushiyaan ah ama ku nool wadanka dibadiisa webka Alpha Bay qaab ahaan wuxuu u samaysan yahay sida Amazon ama adiga online wax ka dhex iibsanayo lacagaha aad wax ku gadanayso waa inay ahaadaan Bitcoin, Monero ama Ethereum muddo kooban gudahood Alpha Bay wuxuu noqday webka ugu soo booqashada badan Dark Web isticmaalayaashan waxay kor u dhaafeen 200,000 oo qof 40,000 oo jeerna wax ayaa lagu kala gatay 2017 300,000 oo product ayaa laga dhex helayay gudaha webkan Alpha O2 oo ah aas-aasaha webkan wuxuu noqday milyaneer hantidiisana waxay kor u dhaaftay 10 milyan oo dollar waa muddo 2 sano kaliya oo webkan samaysan yahay dhinaca kale kooxaha dambi baarista Mareykanka waxay baadigoob ugu jiraan soo helidda shakhsiga aas-aasay webkan dambi baarayaasha waxay awoodooda dhan iskugu geeyeen soo helidda ninka la magac baxay Alpha O2 ayagoo isticmaalayo dhammaan IP address-yada lagu isticmaalay webka Alpha Bay ciwaan walba oo wax looga gatay laguna gaday webkan baaritaan ayay ku sameeyeen December 2016 Robert Miller sargaal u qaabilsan kiiska Alpha Bay asagoo kombiyuutarkiisa hor fadhiya ayaa waxa u soo dhacay email soo dhaweyn ah ama welcome to Alpha Bay kadib markuu ciwaan ka dhex samaystay webkan qof walba oo ciwaan ka dhex furto webkan si automatic ah ayaa waxa ugu soo dhacayo emailkaasna wuxuu ka imaanayaa aas-aasaha webkan dambi baarayaasha hadda wadda ayaa u furmatay waxayna baaritaan ku sameeyeen emailkaas magaca emailka sidaan ayuu u qornaa beamalex91@hotmail.com waxay soo heleen magaca Alex inta qof ee ku isticmaasha midiyaha sida Facebook iyo emailada kala duwan sawirkan ayayna soo heleen baaritaan kadib waxay ogaadeen in emailkan lagu isticmaalay PayPal meelo kala duwan wax looga gatay magaca qofka iskale emailka waa Alexander Gazes hadda waxaa la helay magaciisa iyo sawiradiisa laakiin su'aasha xaguu joogaa ninkan Results of what they call the largest international operation waxay soo ogaadeen inuu ganacsiyo ku leeyahay wadanka Canada waliba gobolka uu ka soo jooda ee Quebec waxa Canada uga diiwaan gashan inuu ku shaqeeyo software designer wuxuuna leeyahay tech company la dhaho EBX Technology dambi baarayaasha Facebook waxay ka soo heleen sawir asaga iyo saaxiibadii gabadhaasna waxay u dhalatay Thai markaasna waxay xaqiiqsadeen inuu joogo wadanka Thailand Bangkok kiiskan waxaa iska kaashaday 7 dawladood laakiin qabashada ninkan ma sahlano
meesha uu degan yahay iyo gaariyaasha uu ku socdo ayaa la soo helay qabashadiisana waxay la sugayeen fursad gaari Toyota ah oo ay wado gabar FBI ah ayaa waxay soo aaday dhinaca guriga Gazes waxayna si ku talagal ah ugu dhufatay albaabka guriga qaylada iyo jugta gaariga shaqadii uu dul fadhiyay ayuu ka soo tagay wuxuuna soo aaday banaanka laakiin meeshan u fiirso toobkiisa ayuu kaga jiray shaqada waxaana on ahaa markaas oo uu ku dhex jiray webka Alphabay oo asagoo aanan laptopka loo gareyn ayuu banaanka soo aaday fursadana waa mid ay la gaadayeen booliska markuu ogaaday inuu dhexda kaga jiro dabinkan loo dhigay wuxuu isla markii la soo baxay telefonkiisa si uu u loo gareeyo webka laakiin isla markii waxaa qabtay uu ku soo booday askari meeshaas ayana lagu jeebeeyay Gazes oo Kanadiyana hantidiisa waxay kor u dhaaftay 25 milyan gaariyaal qaali ah guriyo hoteelo iyo malaayiin cryptocurrency ah qabashadiisa asbuuc kadib 12 July Alexander Gazes wuxuu isku dhex dilay xabsiga meeshaasna waxaa lagu soo afjaray boqorka The Dark Web waxaana hawada laga saaray webka Alphabay Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. This is the largest dark market web place takedown in world history. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow waqtigaagana waad ku mahadsan tahay